madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa xafiiskiisa ku qaabilay xildhibaano ka socda wadanka Uganda oo socdaal ku yimi magaalada Hargeysa. Warbixinta warkeena ugu diyaarisay waryaheena ayaan Cismaan Cali. madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa qasriga madaxtooyada ku qaabilay wafdi ka socda baarlamaanka wadanka Uganda oo booqasho ku yimi Soomaaliland. kulanka madaxweynaha waxa ku weelinayay madaxweyne ku-xigeenka gudoomiyaha golaha wakiilada iyo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland. kulanka oo muddo qaatay ayaa markii uu soo dhamaaday waxa faahfaahin ka bixiyay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire isagoona sheegay in wafdidan la kulmi doonaan golaha wakiilada Soomaaliland. waxa saaka halkan inoogu yimi oo soo booqday madaxweynaha wafdi ka kooban xubnaha baarlamaanka ee dawladda Uganda oo soo sharfay madaxweynaha. Uganda waa wadan runtii cilaaqaad taariikhi naga dhaxeeyo oo dad iyo mataqaana dhaqan bay naga dhaxeeyo iyo maamul bay naga dhaxan jiray. aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa halkan madaxweynaha aad iyo aad buu ugu soo dhaweeyay. waxay nala joogeen dhowrka casho soo socda waxay istarki doonaan insha Allah dhigooda oo maanta ku soo dhaweeyay airportka. wuxuu kaloo noqon doonaa bilow cilaaqaadan isleenahay wuxuu noqon doonaa mid wanaagsan oo dhinac walba dhinac dhaqan iyo dhinac dhaqaalaba. dhankeedana haweeneydii ku hadlaysay magaca wafdida ka socda baarlamaanka dalka Uganda ayaa aad uga mahad celisay sida Soomaaliland lagu soo dhaweeyay. that we have as Uganda and Somaliland, and the most interesting bit is the political stability that we have been hearing of and we have seen, we've witnessed. We came with ministers that are not escorted, and so we are excited and we know that we are here for a partnership that will create. ayaan Cismaan Cali, Somali Cable, magaalada Hargeysa.